shacabka ku nool deegaanka Gubadley ee gobolka Banaadir ayaa waxay bilaabeen in si isxilqaan ay ku dhisaan xarunta deegaanka si uu maamulka halkaas uga shaqeeyo sidoo kale isxilqaanka lagu dhisay xaruntan ayaa waxa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaankaasi Cabdullaahi Nuur oo ah gudoomiyaha dhalinyarada deegaanka isla markaana ka tirsan howlwadeenada dhismaha xarunta ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay sida loo dhisay xaruntani dhismadan sida aad u jeedin waxa ka qayb qaato hayo bulshada deegaanka Gubadley eegoon ku kala hirin ganacsatada aqoon-yahanada dhaqaatiirta dadka waxa heesto waxa waaye asgarta saraakiisha deegaanka xakunto oo amnigiisa ilaaliso dhammaan laguma kala hirin sida aad arkaysaan dhismaha waxa ka qayb qaadanayo asgarti ammaanka in ilaaliyaan loogu talagalay waxa ka qayb qaadanayo odayaashii dhaqanka waxa ka qayb qaadanayo dhaqaatiirti waxaan idin leenahay marka hawshan anagu waxaan kamid ah dadka faraha kula jiro oo aadka uga shaqeeyay waxaan dhisnay saldhigii deegaanka Gubadley waxaan hadda ku guda jirnaa dhismadeeda xaruntii degmada waxaan rabnaa insha Allah in Allah intii aan gaari karno oo garaankayna inaan ka qayb qaadano oo dhisno oo waxa waaye wax fiican oo ummaddu arki karto deegaanka aan ka sameeyno qaar kamid ah dadka deegaanka oo ka qayb qaadanaya dhismaha si gaar ah oo warbaahinta ugu hadlaya afkooda Dr. Ali Maxamed Cariif oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay waa u jeedaan meeshan waa degmadii ama xaruntii maamulka Gubadley dadkii deegaanka iyo maamulkiisa oo isu tagay ayaa waxay dhisayaan xarumihii danta guud dhulkan waa dhul dan guud ah oo uu bixiyay maamulka deegaanka Gubadley isla markaasina loogu talagalay in lagu dhiso degmadii xarumihii caafimaadka sida MCH-ki iskuulkii iyo maxaa la yiraahdaa dhulkii danta guud oo dhan iyo xaruntii isboortiga waxa lagu dhisayaa si maxaa la yiraahdaa isxilqaan ah ama iska wax u qabso ah waxaad u jeedaan dadkii deegaanka oo aan kala harin ciidamadii qalabka sida maamulkii oo isu tagay dhalinyaradii isboortiga hablihii iyo qof kasta oo deegaankan ku noolaa dadka ganacsatada ahaa waxay qaybtooda ka qaadanayaan oo ay ku bixinayaan xoogooda muruqooda iyo maalkooda iyo maskaxdoodaba inay dhistaan deegaankooda waxaad arkaysaan in dadkii dhan ay soo wada xaadireen isla markaasna ay diyaar u yihiin inay dhisaan xarumahooda danta guud waxaan hore u dhisnay xaruntii maxaa la yiraahdaa saldhigga booliiska ee deegaankan waxaan hore u dhisnay iskuulkii deegaanka waxaan hadda dhisaynaa oo aan ku wadnaa iskaa wax u qabso ama maxaa la yiraahdaa isxilqaan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa ay ku dhawaaqeen in danta guud qof walba ay ka qayb qaadato isla markaasna shacabka Soomaaliyeed oo dhisto xarumihiisa loogu adeegi lahaa annagoo ka jawaabayna arintaas ayaan u istaagnay inaan dhisno dhulkeena ugu dambeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay Ustaad Amiin Cabdirasaaq Aadam oo ah madaxa waxbarashada deegaanka waxa uu sheegay in aan loo kala hari doonin dhismaha xaruntan xilqaan inaan wax ku dhisayno isxilqaankaas waxa ka qayb qaadanaya madaxdii deegaanka waxa ka qayb qaadanaya culamaa u diinadii sidaad aragteen askartii amniga ilaalinaysay iyo dhammaan macallimiintii anigoo ku hadlaya magaca macallimiinta iskuulaadka ku yaala degma sugtada Gubadley anigoo ah waxaan rajaynayaa inaad aragteen macallimiintii ardaydii saraakiishii amniga odayaashii dhaqanka dhammaan waxa waaye barnaamijkan isxilqaan waan ka qayb qaadanay waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu mar dhow noo soo ilaan doono dhammaan dadka Soomaaliyeed ee daneynaya horumarka shacab weynaha degma sugtada Gubadley waxaan rajaynaynaa inay nagala qayb qaadan doonaan barnaamijkan isxilqaan meel walba ay joogto Soomaali waxaan leeyahay nabad ku waara idinkuna noqda kuwii nagala qayb qaadan lahaa horumarka idinku aad gaarteen annaguna aan gaarnay laakiin wax yar ay nooga dhiman tahay waxaan rajaynaynaa inaad nagala qayb qaadan doontaan horumarkaas dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda ee xukuumadda Soomaaliya waxaan leenahay oo madaxweynaha ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka ra'iisul wasaaraha dhammaan nagala qayb qaata barnaamijka aad ku baaqdeen oo ahaa isxilqaan ayaa meeshan ka socdo waxaan rajaynaynaa marka barnaamijkii wadadii aad noo tilmaamteen waan qaadnay dhamaystirkeedii idinka idinkaga baahan yahay maalmaha soo aadan waxaan rajaynaynaa inaad jawaabna sii doontaan hadduu eebid insha Allah anagoo ku hadlayo magaca macallimiinta iskuulaadka ku yaala degma sugtada Gubadley Farxiin Maxamuud Yuusuf Samniis TV Muqdisho